asxaabtaydii golaha deegaanka muddada 9 sano ah golaha deegaanka ee Gabiley xilkooga soo hayay oo aan anigu maanta ka soo haray oo golahan cusubna ku cusubahay runtii waxaan uga mahad celinayaa muddada ay shaqeynayeen tacabkii ay gobolka soo galiyeen waqtigii ay u soo hureen aqoontoodii iyo waaya aragnimadoodii ay uga faa'iideeyeen golaha maanta halkan jooga iyo golahan laba sifay ku kala duwan yihiin golaha maanta halkan jooga wuxuu ka mid ahaa raggii tacabkan aynu maanta u joogno qoriga u soo qaatay iyagoo soo halgamay oo xoreynta iyo nabadda dalkan iyo xasiloonidooda ka soo shaqeeyay ay haddana waqti kala geliyeen inay dalkan horumarkiisa iyo wanaagiisa ka shaqeeyaan kuwa tacabkii ay sameeyeen ka faa'iideystay way ku yaraayeen golaha iyaga maanta cusubna dhammaantii wuxuu u badan yahay golahii waxa weeye raggii tacabka ay sameeyeen ku aflaxay ku taaba galay wax ku bartay dabadeedna waanu kala waajib duwanaanina dadkii soo halgamay qaar badan baa tuulooyinka ku silcaya qaar badan baan maanta helin caafimaad waxaynu isugu mahadnaqno aynu isu amaano runtii weli ma hayno intay kuwaasi dhibaataysan yihiin in Gabiley mar walba cidda wuxuu qabanaysaa ay eegto dhageysatana sidii golaha hore ahaa uu ku dhamaaday uu hawshiisa u fushay Gabiley wax badan looga qabtay si ilaahay loogu mahadnaqo oo ilaahay loogu xamdiyo golahan cusub ee halka muuqda la yiri waa dhalinyaro anigu nin dhalinyaro kuma arko marka Soomaaliland laga hadlayo waad aragtay berbera inkastoo dhaqaale ka badan halka yaalo uu yaalo berbera sida loo galay waad aragteen waxaan idinku talinayaa oo xaqiiqa in la isqaban kulmiyaanahay wadani baanahay u cudbaanahay halkan ma taalo dawladda hoose ma taalo waxaan leeyahay golay hore niman xoog soo shaqeeyay la sheegay aad iyo aad u mahadsan yihiin wixii aanu isyeeralaynay intii ay golaha deegaanka ahaayeen wasaaradda arrimaha gudaha saamax baynu kala ahaanayna kole waxaan isku haysanay ma ahayn danta Gabiley wax kale ma jirin marka way saamaxayna wali horta maanta inuu saamaxayna hadii la yiraahdo kuwa dambe waxa leeyahay waxa la idinka fadhiyaa shaqo waa la idin han weeyahay wax qabad badan baa la idinka filayaa waxa uu maxamed amin ku guuleystay in uu degmadii Gabiley iyagoo golaha deegaanka Gabiley ay yihiin in aga bariyaal ay baday wajaale Arabsiga ay kamid yihiin Gabiley oo Gabiley hooyadoo tahay wax qabad uu gaarsiiyay ka halka ka sii wada golaha deegaanka cusubna waxa laga filayaa in hadii ay wax qabadka ay Cabdi Maxamed Amin ku garab istaagaana guul bay gaarayaan xubintii dumarku way ka dhiman tahay golaha deegaanka Gabiley walow ay nimca tartantay 100 nimco kalena gobolka way joogaan maadaama aanu ka maqanahay golihii deegaanka gobolka Gabiley hal hoos loo eego xubin sharafeedyo dumaraha la sameeyo oo ka hadla baahida asaasiga ee haweenka ee gobolka taala anigu ragga hore ee wax qabadkoodii la sheegay waxba oran maayo oo wixii ay qabteen waa la arkaa cid aan la hadlayo waxa weeyaan raggan cusub ee aanu ismudan doono insha Allah bidullaahi kariim raggaasi sanad baan wada joogno waxaan u malaynayaa nin maalin aanu isu nimi ama aan wada hadalnay ma jirto raggan ku soo wada shaqeynay ixtiraam iyo akhlaaq weeyaan raggii hore waxa ka soo haray Maxamed Amin 12kiina kala waa cusubtii waxa idinka muuqata waxa aad loo leeyahay raggii hore iyo ragga kale in bay ku kala duwan yihiin raggii hore waxa lagu yara xamanayo balwad bay u badnaayeen idinkana waxa la idin leeyahay waa dhalinyaro master iyo degree wada sita bal waynu eegnaa xildhibaanadii hore waxa loogu yeeri jiray golo degaan hayara xanaaqin hadii la yiraahdo waa xubin dawladda hoose waayo xeerka sharciga qaranka Soomaaliland baa dhigaya intaas ku kala bedelantii qolada idin soo hor fadhida iyagu golo degaan bay haayeen idinkuna xubin baati